maanta oo bisha November ay tahay 24keeda sanadkuna uu yahay 2025 oo maalin isniinana ay tahay waxaa sharaf weyn noo ah anoo ah gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashada qaranka iyo sohdimaha oo uu weheliyo Commissioner Cabdullaahi Salaad Yarow safarkii aan ku nimid gobolka Mudug degmada Gaalkacyo ee maamul goboleedka Galmudug maanta inuu guul noogu dhamaaday oo ah inaan daah furayno diiwaangelinta dadweynaha gobolka Mudug ee dawlad goboleedka Galmudug waxa maalin weyn waaye waa maalin ma aragtay taariikhiya in shacbiga reer Galmudug gaar ahaan degmada Gaalkacyo saakay ay line dheer ugu jiraan inay isdiiwaan geliyaan si ay qayb uga qaataan doorashooyinka soo socda ee golaha deegaanka ee dalka iyagu u aaday waa maalin weyn magaalada Gaalkacyo waxay ku asteesan tahay magaaladii gobonimo doonka Soomaaliyeed waxay ka soo jeedaa hooygii halgamayaashii waaweynaa ee Soomaaliyeed maanta reer Gaalkacyo waxay muujiyeen dareenkooda ah inay diyaar u yihiin inay qayb ka qaataan dadaalka ummadda Soomaaliyeed ee ugu jirto dalkan inuu aado doorasho qof iyo cod waa kuma hadsan yihiin gaar ahaan anoo ku hadlahayo guddiga madaxa bannaan ee doorashada qaranka iyo sohdimaha waxaan ka mahadinayaa soo dhaweyntii iyo sharaftii iyo qiimihii oo awalba aan ka filaynay oo inoo muujiyeen waxaan u mahadinaynaa maamulka Galmudug oo ugu horeeyo madaxweynaha xukuumadda maamulka gobolka maamulka degmada ciidamada amniga iyo dhammaan shacbiga reer Galmudug sida diiran oo ay qayb uga qaadeen dadaalkeena ahaa inaanu diiwaan gelinno dadweynaha ku nool guud ahaan Galmudug gaar ahaan degmada Gaalkacyo maanta waa maalin weyn maanta waa maalin taariikhiya maanta waa maalin Soomaaliya albaabkii ahayd inay aado dal dimuqraadi ah oo dadku awoodda gacantooda loo geliyo maanta waa maalinkii aaday waxaan jecelnahay insha Allah taala shacbigu inay soo dareeraan inay isdiiwaan geliyaan inay qayb ka qaataan dadaalkan lagu bixiyay oo xoog leh oo lagu bixiyay in awoodda shacbiga loo celiyo Soomaaliya waa ka soo gudubtay xilligii warqad qof lagu magacaabi jiray waxa loo gudbay xilliga dadka shacbiga awoodooda ay gacantooda soo gali lahayd waxayna ka bilaabataa diiwaan gelinta guulaysta sharaf iyo qiimaana leedahay